ما شاء الله magacaygu waa Bishaar Maxamuud Nuur gudoomiyaha dhalinyarada degmada Balcad barnaamijkan dood wadaagiisii ugu horeeyay waan ka qayb qaatay si fiican baan ma taqaanaa tusaalooyin badan ugu qaatay maalintii aan barnaamijkan ka qayb qaadanayay ee up to now waxa u dhaxay farqi weyn oo bulshadii maanta waxay ka gaartay heer aad u wanaagsan oo wacyigelin badan ay ka heshay haday tahay xagga cimilada haday tahay dib u heshiisiinta haday tahay maaragtay fahamka ma taqaanaa la socodka idaacada wax badan ayaa noogu soo siyaaday marka waxaan aaminsanahay meesha shalay aan warka laga soo bilaabay iyo heerka uu soo maray iyo maanta aad iyo aad wax ugu kala weyn bay joogtaa waxaana rajaynaynaa meesha hadda bulshada ay maanta u joogto meel ka badan inuu gaari doono noola gaarsiiyana waan codsigaasna waan ku darsanaynaa bulshadu waxay in badan ma taqaanaa xooga saartay dhageysiga way dhageysataa wixii la dhageysana ku dhaqankooda way yimaadaan marka anigu ugu mahad celinayo agaasima Alos oo barnaamijkan markii hore isagana soo gaarsiiyay aan tababar ku qaadanay dood wadaag ka qaadanay tusaalooyin badan nagala siiyay wala noqonay bulshadeeni ay bulshadii ka faa'iiday inay dhageysato iyo agaasima Cabdixakiin raadiyo Balcad isagana oo in badan waqti ku bixiyay inaysan idaacadaasu maalin ay saareen bulshada si toos dhagahooda ugu dhacdo ay dadku ku tala galaan doo beer joogo doo xoolo ilaashanayo doo gaari wado oo u shidan yahay wixiisa oo mar walba ma taqaanaa xaaladiisii ay online tahay raadiyaha aad ugu mahad celinayna marka waxa kale oo leenahay oo codsi oo ku dhax darsanayna waxay tahay bulshada horta qaybeeda waa balaariyihiin waxa jirto xagga cimilada kale fatahaad kaligeed ma aha waxa jirto cimiladu ibn aadanka waxyaabo fariisi ku sameeynayo iyo waxa iska falaag oo xag rabaani iska socdo sida fatahaad biyo iska imaanayo kale abaaraha kale waxa cimilada dhibay kamid yihiin in lagu soo daro qorshaha sidii bulshada ugu sii gaashaamo lahayd oo kale inay idaacada loo soo marsiyo dhinaca kale xagga ganacsatada waxay keenaan baco waxay keenaan alaabo plastic ah deegaanka iyada naftikeeda dhibaato u keenayso saasoo kale maadaama aad ma taqaanaa dadka ay idaacada ku taxan yihiin in noogu soo kordhi waa jeclaan waxyaabaha plasticada ay ganacsada keenayso hadii laga wareegi karo in dhinac kale u wareegaan si ay bulshadii dhibaatada ay u geysanayso bacda xoolihii ka cunayaan oo maaragtay xoolihii caloosha ka qabanayso dhibaato badan ku hayso daaqi oo soo bixin meesha bacda ku bido waxa soo dhan ma sha Allah taas waa inoo codsi laakiin aad iyo aad waxaan ugu maacinaynaa raadiyo Balcad iyo barnaamijkan faa'iidada aan ka gaarnay wax la soo koobi karo maahan meesha iimayl ka sareysay inoo la gaarsiiyana aad u rajaynayna insha Allah